qabiilada Soomaalida qabiilka xagga qaadka ugu murqaanka xun waniyo waa garxajis sax way beeraanba qaadka beeraan way beeraan sax daynaya gabadh weersangeliyo 15 jir ka yar oo aan reer lahayn ma jirto way waa ka marka maxaa sababay oo hilib digaag aad uga dhigta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waaniga koor casaa maanta iyo muuqaal kale oo xiiso badan muuqaalku waxaan ugu martiya khabiirka weyn ee ku takhasusay qabyaaladda iyo reeraha maantana waxyaabo kala falaqayn doona muuqaalka like saar share gare page-kana follow gare si aad ula socotid barnaamijyada quruxda badan aan soo gudbino reerkaagana bartan ku soo mooshin gare isla markaan muuqaalka sii share gare Cabdisalaan Socdaal oo ka shaahaya gudaha hoose ayaan booqan doonaa inala socdo waxaan ku weydiinayaa qabiilka Soomaali fanka lagu soo habaaray ee aan koob la joogin hadana soo yaqaana la janno waa reerka fanka lagu soo habaaray waa abgaal oo hawiye ah fanka hooyadii bay bacgeliyeen waaye maxaad ku cadaynaysaa fartuun balbalaarka alfanaan Socdaal dayax dal nuurse balaayo wada codku nooc kale ay ku wada heesayaan aad fahmeen ay wada haystaan marka wata marka wax la kuwa fanka lagu soo habaaray laakiin iyagu maxay soo haystaan waxay isku haystaan inay fanaaniin aan laga daba dhicin ay yihiin waxaan ku weydiinayaa qabiilada Soomaalida reerka Soomaalida ugu guurka badan dumarkoodu ay ugu guurka badan yihiin ee ilaa laba gabadha 15 jir marka soo gaadho ay stareento ay guursanayso waa weersangeli sax waxaan ku cadaynayaa gabadh weersangeliyo 15 jir ka yar oo aan reer lahayn ma jirto waa ka marka maxaa sababay oo hilib digaag aad uga dhigta marka taasa digaag marka ma dareen gooni kordhiya marka waxay noqonayaan hablo cas fichadaad tan dhulka la dhigi maayo qabiilka Soomaali inagoo samir sameynayna xaq hubka ugu hubka badan leh dagaal hadda noqoto oo magarasa marka ku kacaya oo magarasa hubka waad moodayna sameeyaan oo kale waa dhulbahanteena sax de guryaha u yaalan baabeesheesha K47 meel ay ka soo guraan lama garanayo marka waxa la yiri warshad dagaalkii labaad ee adduunka ayaa buuhood lagu ilaaway warshad qoryaha sameeyay dad badan baa waxay aaminsan yihiin dhulbahanta inay yihiin reeri dagaaladii maarta dhici jiray gaalada la dagaalamay ku ugu weynaa de waxaad ku garanaysaa ragii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan banin dhulbahantaabo ahaa waa kii waranka kula dagaalamayay gaalada iyagoo diyaarada ku dagaalamaya marka waxaad ku garanaysaa inay weligoodba dagaal joog ahaayeen dagaalka saddexaad adduunka waxa laga yaabaa inay dhulbahantu hogaamiyaan marka waxa way aad iyo ma santahay waxaan ku weydiinayaa xagga markay ku soo noqono waxan waa kaftan markaan u soo noqono qabiilka qabiilada Soomaalida qabiilka xagga qaadka ugu murqaanka xun waniyo waa garxajis sax way beeraanba way beeraan sax marka waad iska garanaysaa marka yar iyo weyn waqayna yar iyo weyn waxaad moodaa in furaash marka si seexanaya ayaa habeenkii caawda loo hoos geliyaa subaxii marka hadaanu qaniinin waxaan usanaya reerka xagga fanka heerka gaaray ee ugu magarasa fanaaniinta ugu badan leh ee magarasa mustaqbalka fanka Soomaaliyeed gacanta ku qabanaya waxa weeye ma waqtigii hore mise hadda waxa weeye waa reerka la ogaadeen weeye laakiin waqtigii hore gabooya aha waqti hore ku cadaynaysa waqtigii hore Umar Duule Maxamed Saleebaan Tubeec bismillaah lama tirin karo imika kuwan ogaadeen yaa kamid ah fanaaniinta waxa kamid ah Sharma Boy waxa kamid ah Xariir Axmed waxa kamid ah lama tirin karo Suldaan Seeraar وحبلو خضر السليم حبلو بدن oo xagga fanka Yurub geeyo kale qabiilada Soomaalida qabiilka xagga hoggaanka noqoto hoggaanka ku wanaagsan hoggaanka xagga hoggaaminta waa reerka lahaaniyo ma jeerteen sax reerka ma jeerteen la yiraahdo xagga hoggaaminta waa ku wanaagsan koow iyo laba waxaad ka garanaysaa berigii ay Soomaaliya madaxweynaha looga dhigay de markiiba ra'iisul wasaarihii wixiiba dadkii u dhadhawaa ayay siiyeen qabiilada Soomaalida qabiilkaas oo si diinta bayagaalay diinta gaar ka haya walina de Soomaaliya dhammaan diinta gaar ka haysa qabiilada ku kala duwan yihiin qabiilada reeraha ugu wadaadada badan waa gabooyi hadda diinta gaar bay ka haya waxaad ka garanaysaa barkhad batuub rag badan oo ka reeraha xagga ficilka Soomaalida xaqooda aan agtooda lagu maakarin lagu ay karin qabiil kasta haatid waa habar jeclayna xagga ficilka waa dawaco ficilka aad bay ugu fiican
markaa waa reeraha khiyaamada waa khiyaamo ficilka way ku fiican waaye aad iyo aad u mahadsantahay socdaal ninkan wuxuu ahaa cabdisalaan socdaal oo ku takhasusay qabyaaladda khabiir ah nin wax bartay 15 ashaado oo kala duwan oo degree ah iyo master iyo ashaadooyin kale aan halka soo koobi karin oo cilmiye kala duwan haddii aad jeclaysatay muuqaalkan ama uu ku raali geliyey waxaan ku leenahay commentiga nagu reeb reerkiina si aan uga soo hadalno muuqaalka xiga dhanka kamarada wax naga caawinaya walaalkay cabdi cismaan oo ku magacday cabdi boojo waxaan leenahay saaxiib gacanta iyo qalbiga iyo maskaxda ilaaha ku barakeeyo muuqaalka xiinta ku kulmi doona wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabaday